ما يعرفه إلا اللي راح وجربه وعاش الكفاح. يمكن تعب لكن وصل ثم استراح. درب النجاح ما يعرفه إلا اللي راح وجربه وعاش الكفاح. يمكن تعب لكن وصل ثم استراح ثم استراح. درب النجاح ما يعرفه إلا اللي راح وجربه وعاش الكفاح. يمكن تعب لكن وصل ثم استراح استراح استراح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. saakadan oo sabti ah waxaanu joognaa buundada dusheedii iyo shaqadeedina shalay 3 saac iyo bar ay soo gabagabowday. buundadan sida aad la socotaan waxay dhiseen 30 sanadood 10 sano oo dambena burburtay waana injirtay. ilaahay baa mahad iska leh dhalinyarada deegaanka u dhashay oo shanta qaar adduunka ku kala nool baana u kacay. dhaqaale fara badan ay iska soo aruuriyeen. qarashka ku baxayna waa 23,500 oo dollar. qalabkeedii badi waxa laga keenay salxadda hoose aan ku taaganahay waxa laga keenay magaalada Dubai. wixii kalena waxay ahaayeen farsamo yaqaano laga soo kiriyay magaalada Xamar. team leader heer oo garaashka Xamar ku leh ayaana soo gaar xoogoodii ku qabtay ayagoona dhaqaalahoodan ay bixiyeen dhalinyaradaas. qurxinta aad arkaysaan oo buundada sidaas loo qurxiyay dhaqaalahaas ayaa ku baxay. waxaad ogaataan qofka insaanka dadka isku tashadaan inay wax qabsan karaan aysan loo baahneen gacan hoorsiga shisheeye. hase ahaatee ummadan iyaga ayaa isku tashan karta, iyagaana wax qabsan karta. quruxda iyo wanaaga iyo sharafta ka muuqata buundadan waxa sameystay dadka u dhashay deegaanka. markaan idinkaga hadlo kooxda u kacday waxa hogaaminaya Abshir Sheekh Cabdi. dhalinyarada waxayna ka koobnaayeen Abshir Sheekh Cabdi, Ismaan Ali Maxamed, Ibrahim Maxamed Ali, Abuukar Abdul Qaadir, Abdiqani, Ismaan Faato, Qaadir Macallin Yuusuf iyo dhamaan Maxamed Sheekh Abiikar. dhamaantood waxay ahayn dhalinyaradii maskaxiyan isku soo darsaday dhaqaalaha iyo soo aruurinayay iyagoo dibadda ka soo shaqeynayay. dhaqaalahan wuxuu ku soo dhacayay koox guddi ka dhisan magaalada Xamar oo hogaaminayo injineer Maxamed Abdul Qaadir, Umar Abuukar Siidow, Maxamed Sheekh Ali, Yaasiin Sheekh Abdullaahi, injineer Dr. Ciise Mukhtaar. dhamaantoodan waxay ahaayeen dadkii runtii dhaqaalaha ku soo dhacay. anigana hawsha halkan ayaan ku hogaaminaynay aniga iyo Cabdiraxmaan Abuukar Siidow. hase ahaatee si kastaba arrinta ku dhacdo waa lagu najaxay. mashruucan wuxuu noqday mashruuc lagu najaxay laguna guuleystay. ilaahay maxadaha ka gaartay Allah subhanahu wa ta'ala. thumma dhalinyaradaas ayaa u kacday. maanta wanaaga lagu maraayo buundada baahida markaan idinkaga hadlo baahideedii waxa way 24 ka hal sikin laga maarmi karo. mar dad baa mara, mar waxa mara gawaari waaweyn baa marta, mar waxa mara gaariyaal baa mara, cagafiya mara, wax walba way maraan. waa noloshii dadka bulshada ku dhisan waay. waana baahida ugu muhiimsan ee ummadan ay leedahay. laba magaalo ay u dhaxaysaa, dowladda dhan ay u dhaxaysaa. meel insha Allah waa la isaga baahan yahay. gaariga meel kastana waa lagu mari karaa, dadkana waa mari karaan. alxamdulillah ilaahay baa maxad iska leh. waxaana hadda maanta abaalkaasi iska leh dhalinyaradaasi u kacday oo deegaanka u dhashay. insha Allah ta'ala waxaana rajaynaynaa in ilaahay iyagana ka ajarsiiyo intii maskax ka geysatay, intii dhaqaale ka geysatay, intii xoog ka geysatay, intii talo ka geysataba. ilaahay hawada barakeeyo, ilaahayna hawada aqbalo. waxaana rajaynaynaa in ilaahay aakhiradooda ugu suubiyo. annaguna deegaankoodii sharaf u yeelan ilaahay sharaf ha yeelo. haddii annagana aanu nahay ummadii ku nooleed deegaanka Bariire insha Allah ta'ala aad iyo aad u faraxsanahay. tan xafladeedii furitaanka way dhiman tahay. tan hordhac la idinkugu talagalay waaye inaad idinku aragtaan maadaama dhaqaalihi aad bixisteen inaad ku faraxdaan aad aragtaan. kadibna xafladeeda markii la furaayo intaas in ka badan inaad heli doontaan. haddana waxaanu jecelnahay inaan idin tusno jajabkii burburkii waxaad ogaanaysaan dadaalkii iyo juhdigii iyo dhaqaalihi aad bixiseen inaan lagu fataalin. shilin kasta meeshii loogu talagalay inuu galay baad ogaanaysaan insha Allah ta'ala. annagana hadda waxaan idin tusaynaa
jab ka mid ah jababkii buundada laga fujiyey oo yaala dhinacaan hadda midigteena yaala hadda ayaan kaamirada ku soo qaban doonaa waa arki doontaa waa burburkii buundada laga fujiyey taasaan lagu dhaqmaayay dad badan ayaa halkan dhaqaale xumaan kaga soo waxa kaga dhaawac kaga soo gaaray sida dadka dhaawac ka soo gaaray waxaa ka mid ah Usmaan Abu Kasiido oo runtii ku dhacay garahaan ay dhaawac ka soo gaartay birta ay jiiday waa birta arkaysa laga fujiyey waaye salxadii oo jajabka ahayd taas iyana ku ogaada waxaa kale wax ka soo gaaray dhaawac yar ka soo gaaray nin la yiraahdo Cabdiraxmaan Walqad oo asagana wax ka soo gaareen dhaawac ka soo gaartay nin la yiraahdo markii shaqada la yahay ilaahay naga badbaadiyay wax ku dhacay waa ilaahay mahadiisa maanta insha Allah ta'ala barnaamijkaas aydan ku talagalnay hadina duubista waa idin wadaynaa insha Allah idoo gawaari mareysana inaan ila aragtaan baan jecelnahay insha Allah ta'ala hadina kaamirada ugu sii waa idin ku sii qabanaynaa وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درب النجاح ما يعرفه إلا اللي راح وجربه وعاش الكفاح يمكن تعب لكن وصل ثم استراح درب النجاح ما يعرفه إلا اللي راح وجربه وعاش الكفاح يمكن تعب لكن وصل ثم استراح ثم استراح درب النجاح ما يعرفه إلا اللي راح وجربه وعاش الكفاح يمكن تعب لكن وصل ما استراح خذنا الشهادة تشهد لنا بعزم وإرادة ما زلنا نطمح للزيادة بالعلم لو نعمل تصدرنا الريادة خذنا الشهادة تشهد لنا بعزم وإرادة وما زلنا نطمح للزيادة بالعلم لو نعمل تصدرنا الريادة درب النجاح يعرفه إلا اللي الله وجربه وعاش الكفاح